barnaamijkan soo gudbintiisa waxaa idiin sahlay abka Dilaal. Dilaal waa ab aad wax ku dhex iibin karto kana iibsan karto wixii kuu beeca geli sawirkooda iyo qiimahooda. haddaba ha moogaan abka Dilaal. marka laga soo tago hadallada kuturkuteenta ay aaminsan yihiin dadyow aad u fara badan oo Afrikaan iyo Carabba leh, haddana shaki kuma jirto in dadka ay yihiin carruurtii ka soo farcantay Aadam iyo Xawa. balse waxaa jirta waxyaabo kala duwan ay isku kala gartaan haddii ay ahaan lahayd midabka iyo luqaddaba. haddaba Soomaalida oo ka mid ah qoomiyadaha dunida ku nool waxaa lagu murmaa cid ay asalka ku hayaan takfiir ahaan ama farac ahaan. dadka Soomaaliyeed oo fikrado kala duwan haysta waxay dhalisay muran aad u fara badan inay mala awaalaan. dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay Carab ka soo farcameen oo ay yihiin Semitic, halka qaar kalena oo Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin dad ka soo jeeda Hamitic bahwadaagna la ah shucuubta ku nool Geeska Afrika. barnaamijkeena qaybihiisii hore waxaan kaga soo hadalnay qaar ka mid ahaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ee sheegta in ciriqooda uu gala Carabta, gaar ahaan reer Bani Haashim. haddaba qaybtan saddexaad oo ah qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonnaa qabaa'ilka Isaaq iyo qabaa'ilada kale ee Soomaaliyeed guud ahaanba. haddaba ku soo dhowow mar kale qaybtii saddexaad ee barnaamijka Soomaalidu ma Carab baa mise. sidaan horay ugu soo xusnay qaybtii koowaad iyo labaadba waxaa jiray wadaaddo aad ugu takhasusay in ay buunbuuniyaan carabaynta Soomaalida. haddaba wadaaddo u dhashay heybta Isaaq ayaa waxay iyagana kaalin weyn ka qaateen carabeynta beelaha Isaaq. wadaadadii aadka u buunbuuniyey arrintaasi waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Al-Makaahili iyo Sheekh Cabdi Awnuur oo reer Hargeysa ahaa. qiyaastii dabayaaqadii qarnigii 19aad waa xilligii gumaystaha dalka ay soo galeen. taariikhyahanada ajaanibta ah waxay waraysi la yeesheen labadaas wadaad iyo qaar kale. waxay wax ka weydiiyeen halka isirka Soomaalida ay ka soo jeedo. waxay qorayaasha reer galbeedka diiwaangeliyeen macluumaadkii ay ka soo xigteen raggaasi, ayadoo raggaasi ay ku guulaysteen in qoraayada ay ka dhaadhiciyaan in beelaha Isaaq nasabkooda uu ka soo jeedo Carab. fikraddii carabeynta beelaha Isaaq oo si weyn u hana qaaday bilowgiiba dadweyne aad u tiro badan oo Isaaq ah ayaa rumaystay curinta iyo sheegashada abtirsiimada Haashimiyadda ah, taasoo asal ahaan aan si dhab ah loo qeexi karin halka laga soo meenguuriyey. waxaase lagu saleeyaa dhowr qiso oo qaab ahaan kala duwan. odayaasha ku takhasusay xifdinta abla-ablaynta isku xidhka abtirsiimaha beelaha waxay aaminsan yihiin in abtirsiga Isaaq asalkiisu uu ahaa Isaaq, Axmed, Maxamed, Xiniftire, Mahadir, balse saban dambe oo ku beegneed dabayaaqadii qarnigii 19aad ayaa loo beddelay Sheekh Isxaaq bin Axmed bin Haashim. Isaaq oo heybtooda asalka ahayd Dir, balse soo geliddii Ingiriiska kadib heybtii Dir waxay isu beddeshay Carab. taariikhyahanada Soomaalida qaar ka mida waxay rumaysan yihiin in sababta abtirsiga loo beddelay ee ka dhalatay qorshihii gumaysiga ee saldhigiisu ahaa qaybi oo xukun. maxaa yeelay soo geliddii gumaysiga wixii ka horeeyey beelaha daga gobollada waqooyi waxaa heybtooda loo kala saari jiray Dir iyo Daarood. maadaama beelaha Dir ay tiri ahaan badnaayeen, si loo qeybiyo beelaha Dir loona kala dhantaalo wadajirkooda iyo xuduuddooda, maamulkii gumaysiga wuxuu dhiirigeliyey Carab sheegashada Isaaq. waxaa kaloo jirta sheeko kuturkuteena taas oo odhanaysa Ingiriiska markii uu si rasmi u qabsaday mandaqadda bariga Afrika, dadyowgii kala sinjiga ahaa ee ku hoos jiray maamulkii maxmiyaddiisa waxaa loo kala saaray 3 dabaqadood: caddaanka reer Yurub, midiblaha reer Eeshiya iyo madoobaha reer Afrika, oo xuquuq iyo darajo ahaan la kala saraysiiyey, waxaana ugu liitay dadka madow. haddaba sida sheekada lagu sheegay, rag Isaaq ahaa oo ka shaqayn jiray maamulkii maxmiyaddii bariga Afrika ayaa damiirkoodii diiday in lagu dhaqo nidaamka xaqiraadda ah ee dadka madow loo qorsheeyey. sidaasi aawadeed raggii Isaaq si ay ku helaan qadarin iyo karaamo aadanimo waxay ku doodeen islamarkaana maamulkii Ingiriiska ka dhaadhiciyeen in ay yihiin Eeshiyaan, isirkoodana uu ka soo jeeda Carab. dacwadaasi waa ay meel martay, waxaana loo aqoonsaday raggii Isaaq inay yihiin Carab xuquuq ahaan la siman dadka midabka leh ee reer Eeshiya.
haddaba aan u soo laabano sheegashada carabnimada beelaha isaaq iyo sida ay carabta ku noqdeen. waxaa la shaaciyey sheeko odhanaysa qiyaastii qarnigii 13aad ee taariikhdii miilaadiga waxaa dalka yimid wadaad la odhan jiray sheekh isxaaq bin axmed bin haashim iyo 40 qofood oo xertiisa ka mid ahaa, kuwaasi oo ka yimid dhanka xadrulmowt ee dalka yemen. sida sheekada ay odhanayso waxay ka soo tilaabeen badda cas, dabadeedna waxay degeen oo xarun ka dhigteen buurta lagu magacaabo Sayena ee ku taalla cirifka koonfur galbeed ee magaalada Berbera. 40kaas wadaad oo qasdigoodu ahaa inay diinta islaamka faafiyaan, waa sida la sheegay. haddaba sida dadka qaarkii ay sheegaan, wadaadadii xerta ahaa ee sheekh isxaaq la socotay waxaa ka mid ahaa wadaadka Soomaalida dhexdooda caanka ka ah Sheekh Yuusuf Al-Kownayn. waa ninka loo nisbeeyo inuu alifay hingaada afka Soomaaliga. sheekh isxaaq allaha u naxariistee waxay sheekadu sheegaysaa inuu ka guursaday qof dumar ahaa dadkii aaggaa deganaa, guurkaasina ay ka farcameen toljecle, ayuub, arab, garxajis, sambuur, cimraan, awal iyo muuse. waxaa la sheegaa inuu shiiqa ku aasan yahay meyd, sida laga soo xigtay qoraallo gaboobay. waxayna rumaysan yihiin taariikhyahanada qaar in dir iyo daarood ay wada dhasheen kana farcameen aji irir samaale. hase yeeshee isaaq iyo daarood ay sheegtaan carab, magaca ajina ay wada sheegtaan uu yahay magac naanays ah uusan ahayn qabiil jira. haddaba su'aasha imaan karta ayaa ah in taariikhdu aysan waxba qarin. haddii sheekh isxaaq bin axmed bin haashim ay la socdeen 40 wadaad, maxay taariikhda u sheegi weyday magacyada dhammaan xertiisa iyo halka ay ka soo jeedaan asal iyo farac ahaan? taariikhdu maxay u sheegi weyday sheekh isxaaq islaantii uu guursaday ama dadkii uu halkaasi ugu yimid ciddii ay ahaayeen? ma Soomaali, ma Xabashi, ma Oromo, mise carab kale oo halkaa deganayd? 40kii wadaad ee sheekha la socotay dadkii ka farcamay xaggee ayay ku dambeeyeen oo maanta ay degan yihiin? ma daacuun iyo duumo ayaa keligooda dabargooyey, mise dal kale ayay u guureen? haddii sheekh isxaaq iyo sheekh yuusuf Al-Kownayn ay wada socdeen, Soomaalidii dalka loogu yimid ee afkooda barashada qur-aanka alif la kor dhabay alif la hoos dhabay loogu tarjumay, xaggee bay u hayaameen oo maanta ay ku nool yihiin dadkaasi? af Soomaaliga oo ah luqad aad ugu adag dadka ajnabiga, suurtagal ma tahay wadaad carbeed oo dalka yimid inuu af Soomaali ku alifi karo naxwaha aadka u culus alif la kor dhabay alif la hoos dhabay? waa su'aalo ay dadka isweydiin karaan. muddo laga joogo qiyaastii 1000 iyo dhowr sano waxaa dalka soo degay dad ka soo haajiray qaaradda Aasiya, waxaana safarkooda ka dhashay 3 sababood oo kala duwan: diin fidin, ganacsi iyo qaxooti ka soo rug doorsaday ciriiri soo food saaray. 3 kooxood intooda badan waxay rasmi ahaan ugu nagaadeen Muqdisho, gaar ahaan waxay camireen Xamarweyne iyo Shangaani. haddaba dadka halkaasi degay waxaa ka farcamay dhowr jilib oo haybtooda ay kala tahay reer sheekh, reer faqay, shaanshi, camuudi, guudmane, bandhabow, qalinshube, abbakarow iyo kuwo kale oo aanan halkaani ku soo koobi karin. beelahaasi oo ilaa iyo maanta ku nool Muqdisho ilaa iyo Marka waxaa loo yaqaanaa Gibil Cad. magacaasina wuxuu muujinayaa maqaarkooda cad ama haraggooda cad, welina waxay haystaan dhaqanka awowyaashood oo lama dhaqan rogin. farqi weyn oo saameeyey midab iyo muuqaal, dhaqan iyo luqad ayaa u dhexeeya Gibil Cadka iyo inteeda kale. tanina waxay caddeen u tahay in dadkii carabta ka yimid dhaqan iyo luqad, midab iyo muuqaalba ay semitic yihiin, halka kuwa kalena ay muuqaalka ka yihiin muuqaal xamiitig ah. marka la raad raaco abtirsiga beelaha Soomaalida ilaa iyo 10 ab, waxay u badan yihiin magacyo la carabeeyey, balse wixii ka dambeeyey taxanaha magacyada abtirsiga waa Soomaali qadiimi ah oo laga soo minguuriyey afafka Kushiitiga bari oo ay isku hayb yihiin. sidaasi oo kale marka loo kuurgalo xubnaha jirka tin ilaa iyo cirib iyo aqalka Soomaaliga miyiga dhig ilaa iyo mudac, hal eray oo af carabi ah kuma jiro. labadan arrimood waxay daliil cad u yihiin in Soomaalida ab iyo isirba, dhaqan iyo luqadba toona aysan la wadaagin ummadaha Carbeed. jiritaanka arrintan waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameeyeen aqoon-yahano Carbeed. 1980yadii dalka Cumaan waxaa laga dhisay jaamacad lagu magacaabo Suldaan Qaamuus. jaamacaddaasi waxay guddi ka kooban aqoon-yahano Carbeed u xil saartay inay baaris qoto dheer ku sameeyaan magacyada asalka ah ee ummadda Carabta. baaristii loogu kuurgalay arrintaasi kadib,
dr cali diin hilaal oo qabiir masri ahaa isla markaana bara sare ka ahaa jaamacad ku tiil qaahira wuxuu sheegay in waddamada soomaaliya koonfurta suudaan iyo muritaniya in isirkooda uusan ahayn carab isla markaana aysan ka mid noqon karin hawsha baxfiga baarista xididka magacyada carbeed go'aankii xeeldheerayaasha dhaqanka carabta wuxuu u cuntami waayey safiirkii soomaaliya u fadhiyey cumaan mudane aadan isxaaq axmed malaha safiirka oo rumaysnaa heesihii carabeynta soomaaliya oo laga baahin jiray raadiyo muqdisho iyo midka hargeysa ayaa warqad cabashaha u qoray khubarada jaamacadda carabta wuxuuna ku dooday in soomaaliya carabta laga saaray oo shisheeye laga dhigay si jaamacadda carabta ugu jawaabto walaacii safiirka waxay soomaaliya u xil saartay dr musaaric xasan azaawi agaasimihii guud ee mashruuca alexo dabadeedna waxaa soomaaliya laga hirgeliyey ololihii carabeynta soomaalida ee ku caanbaxay man anta ana jaamac. Somalis deny Africanity. They do not want to be identified as African. They want to be Arabs. And the Arabs are pushing them. There's a dilemma here. You see, there's identity crisis here. I don't have identity crisis. I'm an African, and there are so many Africans in Africa. I don't have identity crisis. You can call me whatever you want. But I have identity. You do not have identity now because the Arabs have refused you. They are telling you, Ya Habib.